بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. انت اتقانا كدب مقعيق واسمان هذا هوسو ومركي يقوه ريسي وان اركتي تايدا عن كل دليل اما وحو الشيغو قبيل قبائل هذا كميدا قبيل كان المقال كي كان كل دليل ايو marka hore waxaan sheegi doonaa sifooyinkiisa gaarka ah ee lagu garan karo kadibna magaciisa ayaan si caadi u sheegi doonaa. waa qabiil weyn haystana deegaan baaxad leh tiradiisuna ay badan tahay maasha Allah. qabiilkan wuxuu u sii kala baxaa lafo waaweyn kuwaas xitaa mararka qaar luuqa hadal ahaan si toos ah sheegayna si isku fahmi kareen. qabiilkani isma jecla laf waliba namida istiraad waa ka xoog badan tahay ama waad ka awood badan tahay ayay caydaa oo iyasta. qabiilkan magaciisa iyo maamuuskii uu lahaa uu sii dhamaanaya oo sidii hore uma sii weyna. qabiilkan waa qabiil laf waliba oo kamid ah rabta inay jago weyn ka hesho dawladii dhisanta. haddii kale qofkii loo sheego inuu ka socdo qabiilkaasi ama loo doortay oo kan kale u mucaaradayo sabab la'aan sababtana ay u noqonayso inuusan laftiisii ka soo jeedin kaliya. waa qabiil nabad la'aan lagu sheego deegaanadooda aaminsanna in qabiilada deriskooda ah ama gobolada deriskooda degan ay sabab u yihiin xasiloona darida dhulkooda. ha yeeshee waxna kama qabtaan sheegid afka maahane. waa qabiil haddana aad ugu badan dhanka tahriibka iyo qaxootinimada. waa qabiil jooga dalka iyo dibadda. waa qabiil markay qurbaha isku arkaan isku raadsada marka hore magaca qabiilkooda haddana isku sii shinsado laf haddana isku sii shinsado ilmo adeernimo haddana sidaas ay tahay weli ku sii heshin kareen. hadda waan sheegay sifooyinka qabiilkaas. qaarkiin laga yaabay inay durba sii garteen, qaar kalena waxay aad u dhararsan yihiin inay iga maqlaan si marka ay maqlaan oo ay ogaadaan kana dhaliila inuu yahay qabiilkooda ay caadi ugu soo jawaabaan ama ammaan iyo qosol ay ugu soo ficil celshaan markay ogaadaan inuu yahay qabiil ay necab yihiin ama ka baxsan midkooda. balse ma taqaan qabiilkaas waa aniga qabiilkayga. sidoo kale adigana qabiilkaaga ها adiga daawanaya ayaan kula hadlayaa. waa qabiilka Soomaaliyeed dhammaanteena waxaan nahay isku qabiil. sifada caayeed ama amaaneed ee uu hal qabiil yeesho ayuuna qaranka dhan wada yeelan karaa. qabiil markaan maqalno dhigtan taagnaa dareen gooni aan bixinaa soo maahan. horta mis weydiinay arrimahan qofka aan mar barano waa laga yaabaa inaan magaciisa ilowno laakiin qabiilkiisa ma ilowno. maxay ku dhacday? ma isku diidannahay in qofka Soomaaliga ah waxa uu horeeyo wax walba oo looga xanaajin karo ama uu ka xanaaqi karo inay tahay qabiilkiisa oo lacay ama wax laga sheego. qofka ku qanacsan inuu qabiilkiisa yahay kan qabiilada ugu fiican oo qabiil kadib Soomaali baa tahay ma ku qanacsan tahay Soomaali maanta waxay caalam ka tahay. awoowayaasheen qaab labiskooda oo aan waxba inaga hadleen waan bedelnay laakiin qabyaaladda ay nooga tageen oo na kala tagsiisay weli maxaan ugu dheganahay oo aan ugu tagi laanahay. waxaad arkaysaa odayaal ama dad waayeela intay TV soo fariistaan ama radio leh dhaqankii baa laga tagay oo la miinguuriyey laakiin qabyaaladii qurbihi ayaa loo batay. waxaad arkaysaa wiil yar ama gabar yar oo aan afkoodii hooyo xitaa aanan ku hadli karayn ama sixi karayn oo ku leh actually ani af Soomaali si fiican ma hadli karo laakiin qabiilka ma taqaan landera wallah landera ahay. feri markaasay waalidiinteena qaar oo caruurtaasi oo kale dhaleen ku leeyihiin ama ay ku doodayaan waxaan baraynaa waxay yihiin. waxa ay yihiin miyaad bantay mise waad hubaysay? waayo xanuga yar oo isagoo yar looga sheekeeyey la jeclaysiiyey qabiilkiisa loogana dhigay luul iyo lama taabtaan waxay dhaxashaa inuu si fudud uga caroon karo markuu weynaado
haddii uu maqlo qabiilkiisa oo wax laga sheegayo. marka fadlan carruurteena aan uga sheekayno isjeclaysiga qaran iyo inay ka soo jeedaan waddan u baahan in laisku qalbi furnaado oo gacmaha la isqabsado. sug ha iga tegin. waa sax, waa lagu cajisayaa. qabiil wax badanaa laga sheekeeyey, waa laga geeraaray, waa laga gabyey, waa laga heesay, soo ma ahan. laakiin waxay u baahan tahay qof walba wax ka soo jeedinayo inuu ku dari karo talo ama ficil. tanaan maanta ku jirno oo ah qaxar, waxaan uga bixi karnaa in qof waliba ay dhankiisa uu iska saaro mas-uuliyad culus oo uuna qofna ku halaynayn, taasoo usii gudbayso qoys walba oo midnimada iyo isjeclaysiga dhankooda kasii hogaamiyana ayadana waxay sii dhali kartaa in aad la isku qaraabaysto. marka la isqaraabaystana si wada jir ah waxaa loo saari karaa qabiilka iyo qabyaaladda. qabiilkoo la saarana waxay si hubaal ah ay dib inoogu celin kartaa qaran. marka aniga taladan soo jeedinaya waxay tahay bal inaan is-imtixaanno, qof waliba inuu isku imtixaani karo arrimahan midkood. misku dayday weligaa mise hadda kadib misku day kartaa adigoo maqlayo qabiilkaagoo la caynayo inaadan ka xanaaqin waadna ka jawaabin? ma isku day kartaa ama ma isku day karnaa haddana inaanan farxin oonan u rayaaqin marka aan maqalno qabiilkeennii oo la ammaanayo? haa, marka adiga adigoo maqlaayo qabiilkaagoo wax laga sheegayo aad ka aamusto, xitaa qofkii kuu dhowaa ayaa wuxuu ku dhihi karaa damiir laawe ama dhiig laawe ayuu kugu tilmaami karaa. laakiin ogow, hal mid ama hal mar adiga aad taas dulqaad aad ugu samaysay, adiga aad ka aamustay, way kugu dhaliili karaan 5 qof ee kugu qabiilka ah. laakiin ugu yaraan bar ka mid ah Soomaalida ayaad waxa u soo jiidi kartaa wax qurux badan. dulqaad adiga aad u muujin karto walaalkaaga Soomaaliyeed ayaa meesha isku jira. walaalayaal, aan isku ballaarino dulqaad dhexdeena ah. xitaa hadduu midkeen kan kale uu shakhsiyadiisa maago, aan weli noqono kuwa aan isku jawaabin dagaal. waad isdhihi kartaa macquul ma ahan samaynta waxyaabahan uu qofkan sheegayo, laakiin ogow, waxaadan weligaa samayn marka aad samayso ayaad waxaad gaari kartaa natiijo aadan weligaa gaarin. marka aad dhaawac tahayse waa inaad samaysaa wax weliba oo dawadaada ay ku jirto si aad dib u hesho dhaqdhaqaaqaagii buuxay. annagana haddii aan Soomaali nahay waxaan nahay dhaawac. waxaa dhaawacan magaceenna, muuqeena iyo jiritaankeena. marka walaalahayga Soomaaliyeed oo waxaan qof waliba aan kula dardaarmayaa dadaal uu u galo isbeddel iyo inuu sameeyo wax waliba oo uu u malayn karo inay isbeddel wanaagsan keeni karaan. dalka meel buu inoo yaalaa oo uu nagu sugayaa, laakiin annaga aan dadaalno, aanna la daris ahaano, hubsiino, daacadnimo iyo iswaxtar aan dhammaad lahayn, aanna meelna ku ekayn ilaa iyo aan dib u gaarno waxa inaga maqan oo aan raadinayno. aanna mar walbana si xisaab la'aan ah aan u ahaano kuwo is-cafiyo. hadda nafsadeyda ayaan ka bilaabayaa. waxaan cafinayaa qof waliba oo ani isaga wax ay ina kala dhex mareen. waxaan cafinayaa adiga
i daawanayo oo aragtidayda ama muuqaalkayga intuu kula noqdo wax kale isoo cayn doono ama hadal xumada isoo jawaabi doono ayaan ku sii cafinayaa. waxaan salaamayaa mar kale si qalbi ah dhammaan intii daawaday. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.